بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan halkan kasoo gudbinaynaa casharkii sideedaad ee hagaajinta barnaamijkeeni taskiyada ama dahirinta nafta. waxaan maanta ka hadli doonaa insha allah islaaxul qalbi, sidii qalbiga uu qofka muuminka u hagaaji lahaa, qalbigiisa uu u dahiri lahaa, qalbigiisa uu uga nadiifi lahaa xumida iyo cuqdada iyo waxyaalaha aan loo baahnayn oo dhan, siduu qalbigiisa uga nadiifi lahaa, qalbigiisa uu ugu qurxi lahaa acmaasha wanaagsan, acmaasha xuxunna uga tirtiri lahaa. qalbigu sida la og yahay waa xibin muhiim ah, waa meesha raxmadda ilaahay ay ku soo dhacayso, waa meesha ruuxa laga eegayo, waa meesha haddii ay wanaagsanaato jirka dhan uu hagaagayo, haddii ay xumaatana jirka dhan uu xumaanayo. waa maxalu nadar illaah, ilaahay meesha uu eegayo weey. waa xibinka haddii oo nadiif ah uu maalinka qiyaamo yimaado, qofku uu la yimaado, ilaahay uu u dhaafayo, raxmaddiisa uu siinayo. haddii oo aan isagoo nadiifa uusan la imaana uu dadka xuxun ku jirayo. sidaa darteed salafkii iyo dadkii wanaagsanaa waxay ku dadaali jireen hagaajinta qalbigooda, nadiifinta qalbigooda. ilaahay isagoo ka hadlaya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi: walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. nebi ibraahim ayaa wuxuu leeyahay, ilaahayow ha i hoojin oo ha i dullayn oo ha i baahdilin maalinka ummadda lasoo saari doono oo qubuurtoodii laga soo bixi doono oo qof kastaahi camalkiisa farta laga saari doono. maalinka ilmo iyo xoolo aysan waxba tarayn, ilaahayow maalinkaas ha i hoojin oo qofku uusan madax furasho bixinayn, qofku uusan saaxiib badbaadiye helayn, qofka aan loo ergeynayn. maalinkaas ilaahow ha i hoojin. ilaa man ata allaha biqalbin saliim. qofka maalinkaas faa-iidayahi kaliya waa qofka ilaahay ola yimid qalbi nadiif ah, qalbi dahiran, qalbi xumidii ka maran, qalbi xasadkii ka maran, qalbi cuqdadii ka maran, qalbi qabyaaladii ka maran, qalbi isla weynidii ka maran, qalbi camal weynidii ka maran, qalbi istustuskii ka maran, qalbi qaraabo goysnimo ka maran, qalbi tashaaxun iyo isgoyn ka maran, qalbi maxaba ka buuxdo, qalbi nuur ka buuxo, qalbi runi ka buuxdo, qalbi iimaan ka buuxo, qalbi ikhlaas ka buuxo, qalbi tawaaduc ka buuxo, qalbi yaqiini ka buuxdo, qalbi tala saarasha ka buuxdo. qalbigaas nadiifkaa qofka la yimaada kaliya ayaa ilaahay maalinkaas agtiisa qiimo ka leh. qofkaas ayaa wax maaragtay badbaado haysta. aayad kalena id jaa rabbahu biqalbin saliim uu ilaahay ku leeyahay markii nebi ibraahim uu rabbigiis ola yimid qalbi nadiif ah. qalbiga nadiifkaahi inuu muhiim yahay ayaan meeshaas ka fahmaynaa. ilaahay uu ku celcelinayaa intii qofka qalbigiisa uu hagaajiyo ayaa qofka jirkiisu hagaagayaa, inta qofka qalbigiisu uu xumaadana jirkiisu uu xumaanaya. haddii qalbigaaga ay ka buuxaan sifaadka xuxune, jirkaaga kaloo dhan waa eber. haddii qalbigaaga dhaqankii wanaagsanaa, akhlaaqdii wanaagsaneed, tilmaamihii wanaagsanaa,
ay ka buuxaanna jirkaagu wuu hagaagaya. waxaa jira wax la yidhaahdo al awsaafu almaxmuuda iyo al awsaafu almadmuuma. al awsaafu almaxmuuda waa sifaadka iyo akhlaaqda wanaagsan, ama al awsaafu ama al akhlaaqu alxamida, akhlaaqda wanaagsan. al awsaafu almadmuumana waa akhlaaqda xuxun. qalbiga marka maxaa la rabaa? waxaa la rabaa qofku inuu la yimaado laba shay oo attakhali wataxalli. attakhali waxa weeye waa dahirin oo meeshii la nadiifiyo. waxaan tusaalayaal usoo qaadanay guri haddaad doontid inaad qurxinaysid, gurigaas waa inaad nadiifisaa, waa inaad xaaqdaa, waa inaad hagaajisaa, waa inaad qashinka ka dhex qaadaa. markaas kabacdi ayaad goglaysaa, marka kabacdi ayaad qurxinaysaa. laakiin meeshii oo qashina oo wasaqa oo boor ah oo aan nadiif ahayn ma qurxinaysid. marka hore qalbigaaga waxaa la rabaa takhali inaad ku samaydid oo sifaadkii xuxumaa aad ka dahirtid, si sifaadka wanaagsan aa u gelisid. qalbigaaga isla weynidii, istustuskii, xaqiraadii, yasidii, beentii, camal weynidii, maaragtay cuqdadii, xasadkii, wixii tilmaan xun oo dhan ka dahir qalbigaaga. markaad nadiifisid oo tilmaamaha xuxun aad ka nadiifisid, waxaa samaydaa attaxalli, qurxin. qalbigaaga ku qurxi tilmaamaha iyo akhlaaqda wanaagsan. run ku qurxi, ikhlaas ku qurxi, tawaaduc ku qurxi, yaqiin ku qurxi, tala saarasho ku qurxi, yaqiin ku qurxi, maxabo ku qurxi, qaraabo xiriirneed ku qurxi, isjacayl ku qurxi, sifaadka wanaagsanaa ku qurxi. markaas adigaa dhan waa wada qurxoonaanaysaa. qalbigaaga markaa qurxisid kulligaa waa wada qurxoonaanaysaa. qalbigaaga markaa xumaysid kulligaa waad wada xumaanaysaa. dhibaatana waad ku jiraysaa, cuqdad baad ku jiraysaa, maanta oo dhan qabyaalada u diriraysaa, naar baad shaqaysanaysaa. waxaan aragnaa hadda waayahan dambe, hadda meel qof kastaahi kusoo hadlo oo social media leera ayaa soo baxday, waxaa qabyaalad isku dilaya, isku caynaya, annagaa kaa fiican, ree hebelaa kaa fiican. qalbigiyaa xumaan nooga wada buuxda. hadda qolada uu leeyahay waa kaa fiican yihiin iyo qolada uu leeyahay waa laga fiican yahay, labaduba dan uma hayaan. labadoodaba qolo wada fiicanna ma jirto, qolo wada xunna ma jirto. dadka ku dhex jira qolo kastaahi waxay ku kala fiican yihiin ilaahay cabsidiisii. haddaan ilaahay cabsidiisa la helin ma kala fiicna. qabiil ka fiicanaan jirin, qabiil ilaahay ka jecel yahaan jirin. kulli waxaa ilaahay ku kala jecel yahay cabsida alle. intii cabsidoodu la eg tahay ay ku kala fiican yihiin. markaas ayuu nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, qalbigaasoo ka waramaya, alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh. warhoy baraaruge, warhooy, alaa waa eray lagu soo jeediyo dadka oo dareenkooda uu soo jeesanayo si ayagoo soo jeeda ay u dhageystaan warka loo sheegayo. war baraaruge, jir kasta waxaa ku dhex jira cad yar oo hilib ah, intii afka la gashada cad le-eg. haddii uu hagaago cadkaasi, jirkoo dhan baa hagaagaya. haddii uu xumaadana, jirkoo dhan baa xumaanaya. allahu akbar. kaasi waa kee? alaa wahiya alqalb uu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. haddana eray kaleo xarfu tanbiihaha nabigu isticmaalo calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy, war baraarugu xibinkaas ma taqaanaan, soo jeesta, yuusan magaciisu idin dhaafin adinkoo moog. waa qalbiga. maa sumiya alqalbu qalban ilaa min taqallubih. qalbiga waxaa qalbi loogu magacaabay gadgadoonkiisa uu markasta isbabedelayo. ilaahay baa waxaa laga magan galaa qalbigaaga inuu gadoomo oo dhanka fiican inta ka gadoomo dhanka ka xun uu u gadoomo. yaa muqalib alquluub thabbit qalbii calaa diinika. ilaahay lagu baryaa ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. allaha quluubta gegediyow,
qalbigayga ku sug oo ku celi diintaada. ilaahu qalbigeenna ha gedin. qof waxaad arkaysaa maanta shalay fiicnaa oo maanta diintii ka tegay ama maaragtay qaatay xaalad xayaato iyo nolol adag oo maaragtay diinkiisii iyo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii. maxaa yeelay qalbigii ayaa gadoomay. ilaahay qalbigeenna ma gediyo. ilaahay qalbigeenna xumaanta ha ka gediyo oo wanaagga ha u gediyo. waa inaan ogaanaa qalbigu meesha ilaahay eegaya inay tahay meesha lagaa fiirinayo, oo haddii ay hagaagto maaragtay khayrka iyo waxa aad samaynaysa laga aqbalayo waa qalbiga. meel kale lagama fiirinayo. korkaagaan la fiirinayn, xooggaagaan la fiirinayn, xoolahaagaan la fiirinayn, labiskaagaan la fiirinayn, caruurtaadaan la fiirinayn, gurigaagaan la fiirinayn, gaarigaagaan la fiirinayn, wacnaha quruxdaadaan la fiirinayn, awooddaada kalaan la fiirinayn, qalbigaagaa la fiirinaya iyo acmaashaada. nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslimka ahaa, ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. ilaahay ma fiirinayo, ilaahay ma eegayo, ilaahay ma xisaabayo muuqaaladiina iyo acmaashiina. waxaa la eegayaa oo ilaahay fiirinayaa oo lagaa xisaabayaa oo laguu qabanayaahi ma ahan muuqaalkii xoolihiinne, waa quluubtiina iyo acmaashiina. qalbigaagu hadduu hagaago, haddii acmaashaadu hagaagto, xisaab fiican baa ilaahay agtiisa kuu taalla. haddii qalbigaagu xumaado ama ay acmaashaadu xumaato, xisaab xun baa ilaahay agtiisa kuu taalla. ilaahay qalbigeenna ha hagaajiyo. aan ku dadaalno inaan qalbigeenna hagaajintiisa ku dadaalno. qalbigeennu markii uu tooso ayaa aan toosi karnaa oo iimaankeenoo dhammaystirmaya. qalbigeennoon toosin oo aan hagaagin, iimaankeenu ma dhammaystirmayo. markaasuu nabigu wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaamu axmed soo saarayay, laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuh walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuh walaa yadkhulu ljannata rajulun laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah. nabigeenu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam, qofka iimaankiisu ma tooso, ma dhammaystirmo, sidii la rabay ma noqdo ilaa qalbigiisu tooso, qalbigu sidii la rabay uu noqdo. qalbigaagu markii ilaahay siduu rabay uu noqdo ayaa iimaankaagu sidii la rabay uu noqonayaa. qalbigaaguna sidii la rabay ma noqon karo ilaa carabkaagu sidii la rabay uu noqdo. carabkaaga ilaa aada toosisid. maxaa yeele carabku asaga xumidii soo guraya, wixii xumaayo ku hadlayaa, shartiyuu ku hadlayaa, ama wixii fiicnaabuu ku hadlayaa. marka qalbigii isaga usoo gudbinaya hawshii oo wakiilka ah. qalbigu wuxuu hagaagayaa markii carabku hagaago. jannadana ma galuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam qof dariskiisu aysa ka aamin ahayn shartiisa. ilaahay nagama dhigo kuwaas. ilaahay nagama dhigo kuwa dariskoodu aysan shartooda ka aamin ahayn. waa khatar. dariskaaga inaad dhibtid, muslin ha ahaada gaal ha ahaadee, ma la ogola. wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam 3 jeer. iimaan ma leh, iimaan ma leh, ilaahay baan ku dhaartay iimaan ma leh uu nabigu ku celcelsho calayhi salaatu wasalaam 3 jeer. markaasaa la yihi qad khaaba wa khasira man huwa yaa rasuula allah. kaasi waa hoogo ba-aya, waa kuma rasuulkii allow. markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah, waa qofkii dariskiisu aysan ka aamin ahayn shartiisa.
u fiirso. walaalayaal, marka aan dariskeenna nabadgelino, aan qalbigeenna hagaajino, aan qalbigeenna islaaxino, aan qalbigeenna qurxino, aan qalbigeenna khushuuc maxabo aan ka buuxino. qalbigaagu inuu hagaagsan yahay maxaa lagu gartaa? qalbigaagu inuu hagaagsan yahay waxaad ku garan kartaa haddii markii lagu wacdiyo uu jilcayo, ilaahay markii laga sheekeeyo uu jilcayo, rasuulka markii laga sheekeeyo calayhi salaatu wasalaam uu jilcayo, qur-aankii markii lagugu dul akriyo uu khushuucayo. laakiin haddii qalbigaagu in oo qur-aan lagugu dul akrinayo, ama ilaahay laga hadlayo, ama asmaadiisii la sheegayo, ama maaragtay nebiga laga sheekeynayo calayhi salaatu wasalaam, ama lagu wacdinayo iyo in kalaba hadduusa kala aqoon, qalbigaagu waa dhintaya isdaba qabo. waxaa ka mid a calaamaadka qalbiga wanaagsan, calaamaadkan ilaahay uu noo sheegayo, qalbigiio khushuucaya oo cabsanaya, ilaahay dikrigiisa u khushuucaya. ilaahay wuxuu leeyahay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum. waa tilmaan, wajilat quluubuhum tilmaan weyn weeye. waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaa wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa lahum darajaat cinda rabbihim wamaqfirat warisqun kariim. ilaahay jala jalaaluhu markii uu ka sheekeynayay muuminiinta dhabta ah. hadda muuminiinta dhabta ah wax ugu horeeya oo lagu yaqaanaahi waa qalbi hagaagsan. maxaa yeele qofka jirkiisa oo dhanba hagaagi mahayo haddaan qalbigiisu hagaagin. haddaan jirkiisu hagaaginna muumin dhaba ma noqonayo. ilaahay wuxuu leeyahay suuratul anfaal aayadda 2, muuminiinta runta ahi waa kuwa markii ilaahay la xuso, idaa dukira allah, ilaahay markii la xuso ay dikrigiisa maqlaan ayaa quluubtoodii gelgelanaysa, ayaa quluubtoodii cabsanaysa, ayaa quluubtoodii khushuucaysa, ayaa quluubtoodii saamoobaysa. waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana. haddii ilaahay aayadihiisa lagu dul akriyana iimaan ayay u kordhinayaan. markii aayadaha ilaahay uu maqlo, adkaartii uu maqlo, salligii nebiga uu maqlo, tasbiixdii uu maqlo, towxiidkii uu maqlo, takbiirtii uu maqlo, taxmiiddii uu maqlo, adkaartii nebiga uu maqlo calayhi salaatu wasalaam, khayrkii uu maqlo, qalbigiisu waa saamoobayaa, iimaana u kordhaya. laakiin ka waran haddii aayadihii qur-aanka ahaa nalaku dul akrinayo oo aananba kala ogeynba, ilaahay qur-aankiisiiyaa noo shidan, in aan qur-aan dhagaysananay in kale haddaana kala aqoon ka waran maanta. weliba gaar ahaan waxaan iskaga digaynaa qur-aanka inaan ihaanaysano. waxaa maanta jira qur-aankiiyaan guriga ku shidanaynaa, markaas ayaan telefoon qabsanaynaa qur-aankii oo noo shidan, markaasaa xan la isku daldalaya oo been la isla daldalaya oo dadkii wax laga sheegaya. qur-aankaana maanta o dhan waa kaa kor shidan yahay. waxaa laga yaabaa waxa aad ka hadlaysid inuu qur-aanku kaa reebayo. telefoonkaagaa dhegta haysataa qur-aankiya, qur-aanaan guriga ku shito, suuratulbaqaraan ku shito, suurad heblaayaan ku shito, waa iska shidan yihin qur-aanku foofani, yacni wax oo iska caadiyaad ka dhigato iska allahu akbar. saas ma aha. qur-aanka haddii la akriyo oo qur-aanka ilaahay lagugu dul akrinayo maxaa lagaa doonayaa? qur-aanka markii la akrinayo maxaa lagaa rabaa?
ma inaad telefoonka uu kuugu soo dhaco aad ku dul sheekaysatid, ma inaad gaariga qur-aanka inta gashatid aad ku dul sheekaysatid, ma in maaragtay aada guriga inta ku shidatid aad ku dul sheekaysatid. maya, haybadii qur-aankay qalbigaaga ka saaraysaa, sheekada caadiga ah kuugu darsamayaa. qur-aanka markii aad la akrinayo inaad dhegaysato ku macaansataa lagaa rabaa, haddii kalena uu kuu dansanaado. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku boori jiray dadka qur-aanka in la dhegaysto. waxa uu warinayaa yani imaam mujaahid tafsiirkiisa, nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu maqlay qiro oo nin dhalinyaro ah min al ansaar. markaas ayaa waxaa soo degay waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu. ayadda qur-aanka haddii qur-aanka la akrinayo dhagaysta oo u dheg raariciya. fastamicuu lahu wa ansitu, insaadka maxaa leedahay? al insaat huwa asukuut maca al isgaa, waa inaad aamustid aadna u dheg raarici sidoo dhegaysatid. ma inaan qur-aanka inta guriga ku shidanno aan teleefoonkeenna qabsanno oo weliba aan ka hadlayna maantoo dhan laga yaabaa wax qur-aanku waxa uu ku leeyahayba qur-aanka shidan wuxuu ku amraya wax kasoo horjeeda. ma inaan qur-aanka inta gaariga iskaga shidanno aan ku dul sheekaysanaa oo teleefoonkaaga aada ku sheekaysatid. maya, ma inaan ka dhigana meel uu qur-aanku wax oo telefoonka noogu soo dhaco hadduu raba suuligii kuugu soo dhex dhaco. maya, haybadii qur-aankaad baabi'inaysaa, qalbigaagaad ku yaraynaysaa haybadii qur-aanka. ee qur-aanka weyne oo ixtiraam oo markaa shidatid sheekada kala jooji. haddii gaarigaaga uu kugu shidanyo dhagaysanaysid ee dad kuu soo galaan ood rabti inaad la hadashid, danse qur-aanka. allahu akbar. maanta laakiin xaqiiqada waa ka duwanaa sidaas. ilaahay ha nasaxo sida tawfiiqda allahna waafajiyo. marka ilaahay wuxuu leeyahy muuminiintu waa kuwa markii ilaahay la xuso quluubtoodu ay gilgilato cabsato, markii aayadaha ilaahay la sheegana iimaan ay u kordhinayaan. aayadaha ilahay markii lagu dul akrinaya iimaan u kordhinayaan, rabbigoodna tala saartaan. rabbigooda tala saartaan, ma walwalaan, ma kurboodaan, ma dhibaatoodaan. waxay ogyihiin wax kasta oo dhacaya in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa aysan ka hormari karin. tilmaanta kale oo muuminiintaas leeyihiin waxa weeye waa kuwa salaada ooga, salaad shuruuddeedii arkaanteedii lala yimaada. waa kuwa wixii aan siinay wax ka bixiya, zakadii bixiya, sadaqadii kala bixiya, agoontii caawiya, fuqaradii caawiya, masaakiintii caawiya, biilkii waajibka ahaa bixiya, qaraabadii xiriiriya. kuwaas wey kuwaas ilaahay marka uu tilmaamo wuxuu yidhi, oo shantaas tilmaamood lagu soo sheegay, ulaa'ika humul mu'minuuna xaqaa. ilaahay marka hore aayadda wuxuu ku bilaabay inay muuminiintu kuwaas yihiin, haddana ilaahay wuxuu leeyahay waaba kuwaasa muuminiinta dhabta ah. ilaahay hanagu daro kuwaas muuminiinta dhabta ah. lahum darajaatun cinda rabbihim, rabbigooda agtooda maqaamaad iyo darajaad saray ku leeyihiin. wa maqfiratun wa risqun kariim, waxay kaloo leeyihiin dhaafitaan iyo risqi weyn, risqi wanaagsan ayay leeyihiin. marka waxaa la doonayaa qalbigeennu inuu sidaas noqdo oo khayrkii iyo diinkii iyo wacdigii uu ku saamoobo, oo maaragtay wacdigii uu ku saamoobo ayaa la doonayaa. dadka oo muuminiinta ah waxa weeye kuwa qalbigooda uu jilicsan yahay, kuwa ummadda u naxariista, kuwa ummadda u tura, kuwa raxmadda u leh. qalbiga maaragtay qalbigaas ayaa wuxuu yahay qalbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doonayo oo ka raalli yahay. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix muslim, xadiid dheer way qeyb ka mid ah, wa ahlu ljannati halaath duu sulطaanin muqsit mutasadiqun muwafaq
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ضدك أهل جنة وصدح نين أو مدح أو عادل صدق بحية لوافجيه موافق lawaafajiyo iyo nin naxariis badan oo raxiim ah qalbigiisuna uu jilicsan yahay yuu qalbigiisu u jilicsan yahay qaraabada ayaa qalbigiisu u jilicsan yahay muslimiinta ayuu qalbigiisu u jilicsan yahay qofka qaraabada ah ayaa qalbigiisu u jilicsan yahay uu u naxayaa u turayaa wuxuu qalbigiisu u jilicsan yahay muslimiinta wuu u turayaa qofku muuminiinta inuu u turo waxay tusinaysaa qalbigiisoo jilicsan qalbigiisoo nadiif ah waa cafiif waa qof dhowrsan waana isdhowraa kan saddexaad yacni kan koobaad wuxuu ahaa imaamka caadilka ahaa kan labaad waxa weeye qofkii raxiimka ahaa oo qalbigiisu jilicsanaa qaraabada u qalbi jilicsanaa muslimiinta u qalbi jilicsanaa kan saddexaad waa qof dhowrsan isna dhowraya caruurna u saaxiibahoo yacni waxba isagoo haysan ayuu iska ilaalinaya baryahooda. allahu akbar. qalbiganu marka waa inuu u jilcaa muuminiinta waa inuu u jilcaa qaraabada waa inuu u jilcaa dadka oo uu yahay kuwii ilaahay uu yiri ruxamaau baynahum waa kuwa isu naxariisanaya. waa yahay ilaahay ha naga dhigo kuwa isu naxariista oo isjecel oo is ixtiraama. ilaahay ha naga dhigo. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka la weydiiyey dadka kan ugu fadliga badan muxuu tilmaamay? qalbiga ahmiyadiisaan fahmaynaa. qalbiga macaanka uu leeyahay hadduu hagaago oo aan iimaanka ka dhadhaminaynaan fahmaynaa. waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayu nnaasi afdal, dadka yaa ugu fadli badan, dadka yaa ugu fiican. markaas ayuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kullu makhmuumi lqalbi saduuqi lisaan. waxaa dadka ugu fiican qof kasta oo qalbigiisu nadiif yahay carabkiisuna run badan yahay ayaa dadka ugu khayr badan. qof qalbigiisu nadiif yahay xumi uu ka maran yahay dembi uu ka maran yahay xasad uu ka maran yahay cuqdad uu ka maran yahay dhibka ummadda uu ka maran yahay carabkiisuna uu run badan yahay kaasaa ummadda ugu fiican. markaasaa waxaa la yidhi asxaabtii waxay yidhaahdeen saduuqu lisaani nacrifuh, carabkiisaa run badan waa garanay waa naqaanaa qofka runta badan. famaa makhmuumu lqalbi, muxuu yahay kan qalbigiisu uu makhmuumka yaho nadiifka yahay? nabigu muxuu ku tilmaama u fiirsa calayhi salaatu wasalaam. allahu akbar. nabigu wuxuu yihi calayhi salaam huwa ataqiyu naqiy laa ihma fiih walaa bagyi walaa gilla walaa xasad. waa kan alla ka cabsanaya, qofka alla ka cabsanaya ee taqiga ah weeye. qofka alla ka cabsanaya ee taqiga ah weeye. haddana annaqiyu ah ee saafiga ah. muxuu saafi ka yahay? laa ihma fiihi, dembi male, qalbigiisa dembi kuma jiro. walaa bagya, cadowtinimo iyo dagaal
ummadda u qabana kuma jirto, walaa ghilla cuqdad kuma jirto, walaa xasadna kuma jiro. qalbiga sidaas u nadiifka ah qofka leh, kaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa la jecel yahay, kaas ayaa dadka ugu khayr badan ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. maxaa haddaba nala gudboon? waxaa nala gudboon oo noo habbooni waa in aan qalbigeenna nadiifino wey, qalbigeenna inaan nadiifino. hadda marka waxaan ka hadlaynaa markii la rabo in wax la hagaajiyo, waxaa la doonayaa in cilladda la garto. haddii la rabo dhakhtarku inuu wax daaweeyo, muhiim waxaa ah inuu cudurka garto baaro, kabacdi cudurka markuu gartana inuu daaweeyo. marka waxaan wax ka tilmaami doonaa qaybo ka mida amraadul quluub, quluubta cudurrada ku dhaca ayaan wax ka tilmaami doonaa. markii quluubta cudurrada ku dhaca aan wax ka tilmaanana, waxaan sheegi doonaa insha allahu tacaalaa waxyaalaha lagu daaweeyo qayb ka mid ah. haddaba quluubta cudurrada ku dhaca waxaa ugu horeeya ugu weyn addunuubu walmacaasi, dembiyada dadku ay gelayaan. dembiga kaa dhacaya oo kaa hooraya oo kaa daadanaya, kaas ayaa wuxuu ugu horeeyaa waxa qalbiga burburinaya, oo qalbiga madoobeynaya, oo qalbiga xiraya. wax ugu weyn oo qalbiga dilaa dembiyada weyn. markaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, ina alcabda idaa akhطa'a khati'atan nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa. qofka haddii uu gaf qalbigiisa bar madow ayaa la saaraa. gafkaas dembigaasaa qalbiga bar madow ku noqonaya, meel calaamad madow, mara cad oo wasaqi taabatay ka soo qaad, meeshii ayay ku dhegaysa soma. fa idaa huwa nasaca wastakfara wa taaba suqila qalbuh. haddii uu ka joogsado dembigii uu ka fuqay, dembi dhaaf dalab buu ilaahay weydiistay, rabbigiisu u laabtay, qalbigiisa waa la soofeeyaa. qalbigiisa waa la nadiifiyaa. ilaa birta markii ay mididii afbeesho waxbaa fuulaya, waxa weeye wixii wasaqda ahaa ama maarata afbeelidii in laga soofeeyo, ama birtii maartu fuushay maartii laga qaado. qalbigiisa waa la nadiifiyaa huu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. ninkaas qalbigiisii waa la nadiifinaya, waa la tirtiraya, waa la dhaqaya markuu dembiga hadduu inta ka joogsado istikfaar la yimaado uu rabbigiisa u laabto. wa in caada ziida fiiha xataa tacluu qalbah. haddii laakiin dembigii soonkii hore ka toobad keenin oo iska nadiifin uu u laabto, dembi kalaa ka dhacay, dhibcihiiya badanaya, bar kaloo madow, bar kaloo madow, ku soco ilaa qalbigiisa ay dunuubtu daboosho oo madow uu wada noqdo, wasaqa xirtay. muraayadii aada isku fiirinaysa ka soo qaad, wasaqaa ku dhacday maada tirtirin, wasaq kalaa ku dhacday ma aada tirtirin, mid kala ku dhac, ilaa maalinka dambe muraayadiiba aada isku arki weysid oo ay xiranto. wahaakada marka nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, dunuubtu marka haddii asagoon tii hore ka nadiifin ay mid kale ka daba dhacdo, oo mid kale ka daba timaado, oo mid kale ka daba timaado, qalbigiisay xiraysaa. wa huwa araanu aladii dakara allah, waana mirirkii iyo wasaqdii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ee uu yidhi, kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. qalbigooda waxaa daboolay oo wasaqeeyey oo maareeyey wixii ay shaqaysanayeen oo dunuubtii ah. allahu akbar.
qalbigoodu waa xirmay, waa daboolmay, sidii dunuubta ugu socotay uu daboolmo. u fiirsan marka qofka marka haddii dembi inta gala dembiga uusan ka toobad keenin, qofna ma dhihin ha dambaa, yacni ma dhihin ma dambaabaysaan, dembi inkama dhacaya nalama dhihin, waa idinka dhacayaa toobad keenaa la yidhi. haddii marka toobaddii aan la imaan weyno oo dembiba dembiga kale noo dhiibo, toobaddii shuruuday leeda toobad sax aan la imaan weyno, qalbigu waa daboolmaya. markaasu waxaad ku biiraysaa dadka qulubtooda raanka iyo wasaqdu xirtay, hadhowna qofka khaatimo xumo inuu ku dhinto ayaa laga yaabaa. markaas ayaa dadkaas qalbigood daboolmay, waxaa ku dhacay khasaaratii ugu weyneed ee ah maalinka qiyaama inaysan rabbigooda arkayn. kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun, kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun, maalinkaas rabbigooda waa laga xijaabaya, ma ay arkayaan. huma inahum lasaalu ljaxiim, haddana naartaasayba gelayaan. ilaahay ha naga ilaaliyo, quluubteennana ha hagaajiyo. marka cudurka koobaad oo qalbiga dila muxuu yahay? waxaa weeye waa dunuubta. waxaa ka mid a cudurrada qalbiga dila xubu ddunyaa wa karaahiyatu lmowt, adduunye jacaylka iyo dhimasho nacaybka. jacaylka adduunyada aan jecelnahay ee dhimashadii aan necabnahay wuxuu dilayaa oo baabi'inayaa qalbigeenna adduunyada aan jecelnahay, dhimashadiina aanan kala jeclayn oona u diyaar garoobeyn, qalbigeenu dilayaa. markaas ayaa qalbigii waxaa ku dhacaya wahan, dacfi ayaa ku dhacaya. adduunyadii markii uu jeclaado dhimashadiina uu ka cabsado, qalbigi wuu daciifayaa. xataa cadowgii iskama celinayaan muslimiintu, maxaa yaele dhimashaba ma rabaan, adduunyay rabaan. markaas ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii imaamu abi daawuud uu warinayay, yuushiku lumamu an tadaacaa calaykum kamaa tadaaca alakalatu ilaa qascatiha. waxaa dhici doona oo dhow in ummaduhu ay iskugu kin yeertaan, gaaladu inay isku kinbahaystaan, sida dadka cuntada cunayahay ay xeerada iskugu yeertaanoo war kaalaya cuna, kaalaya badarka cuna. sidaasaa gaaladii iskugu kin habar wacanayaan, markaasay idin laynayaan. maanta aragnaa in gaaladu isku kaana bahaysanayaan, annagana aana waxba ahayn. markaas ayaa nin asxaabiya wuxuu ku yidhi, markuu nebigu yidhi gaalada isku kin yeero doonta, ayaa asxaabi wuxuu ku yidhi, wa min qilatin naxnu yowmaidin, waa yarna miyaa maalinkaas, aadaan u yaraanayna miya? ilaa waqtigii rasuulka oo asxaabtu ay wax badan naga yar yihiin ayay gaalo meel iskaga xireen. marka ma yaraan baa waxa la iskugu kaana yeera doonaaho islaamku dib ayuu u yaraanayaa miya? markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, bal antum yowmaidin kathiir walaakinakum guthaaun ka guthaa'i sayl. bal u fiirsa hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maya, maalinkaas adinku waa badan tihiin, tiradiiya ka badateen, laakiin waxaad tihiin xumbo iyo ubur, daadka xumbadiisa oo waxyaalaha xoorta iyo qashinka ah oo uburta ah oo daadkii biyihii markay isku dhacaan la socda, waxaasoo kalaa tihiin. waxaas tabar bay leeyihin iyo awood, sidaasoo kalaa tihiin. tira inkuma yaree tayaadnan hayn, tira inkuma yaree tayo ayaadna hayn. kow, awooddiinu marka saa hadday noqoto oo maaragtay tabartiinu saas noqoto adinkoo tiro badan, walayanzacana allahu min suduuri caduwikum lmahaaba minkum, ilaahayna cadowgiina quluubtoodu wuxuu ka bixi doonaa cabsidii iyo haybaddii ay idinka qabeen.
haa cabsidii iyo haybadii ay idinka qabeen ayaa ilaahay wuxuu cadowgiina quluubtooda uu ka saari doonaa markaasay waxay idin arki doonaan waxaan jirin kow adinka quluubtiinana ilaa ayagu hadday cabsa waayaan adiguna aada cabsanayn laftigeedu waa iska celi kartaa soo maahan walayaqdifana allahu fii quluubikum alwahan adinkana quluubtiina waxaa ilaahay ku tuuri doonaa dacfiya ilaahay ku tuuri doonaa maxay taa dacfigaas quluubteena lagu tuurayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabiya wuxuu ku yiri yaa rasuula allahi wama alwahan rasuulka ilaahay muxuu yahay dacfigaas markaas ayaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam daciiftinimadkaas isagoo fasiraya xubu dunyaa wa karaahiyatu lmowt waa adduunye jacayl iyo dhimasho nacayb adduunyaduba qofkan jecel yahay inuu dhinto ma rabo marka meel dagaal iyo meel lagu doodo iyo meel islaam la difaaca iyo maba doonayaba maba aadi karaba keligiisu u noolaadu ku dadaalaya qofku mar hadduu nolosha ku dadaalo dhimashana uusan doonayn wax kale uu gala ma jirto qalbigiisii marka waa eberba waa daciif markaasa ummaduhu isku kimbhaysanaysaan walla nabigeenu inuu rur sheega calayhi salaatu wasalaam maantaan xaaladaas ku suganna inta dowladood oo muslima awoodaha ay leeyihiin tirada uu islaamku qabo oo laga yaabo adduunkii inuu rubciisba yahay iyo maanta awoodda ay leeyihiin sida gaaladu ugu tasarufayaan dowladday doonaan ay afgembi karaan midday rabaan ay baabi'iyaan midday rabaan cidday rabaan ay madax uga dhigtaan kii ay ku salaadaan hadhow kasii tuurtaan siday rabaan ay ka yeelaan dowladihii ugu waaweynaa ee carbeedna ayagaas on hadhow laga gado hubka oo dhacay kaliya laga gado oo la yidhaahdo hubkaan annaga waa naga dhacaye mid cusub oo hormaraan gadanay adinku ka naga gata lacagtiina maadaama kaydsateen ee aadna islaamka waxba siinayn aadna lacagta waa in la isticmaali rabto hubkaan nooga gato hubkii naga dhaca annaga haddana aad gadatiina xaggaa la aadaysan ma dowladaha laftigiina in ku jiro islaamka ahoo tabarta daran ku baabi'iya islaamka dhexdiisa ku baabi'iya allahu akbar sidaasa socota maanta xaqiiqada waa arkaynaa waxaa ka socda dowladihii carabta ugu waaweynaa ee islaamka inay matalayaan iska dhigayay maxaan sheegnay marka quluubta waxyaalaha baabi'inaya kow waa dembiga qalbiga madoobeynaya labo xubu dunya wa karaahiyatu lmowt saddex alfitan fidnooyinkuna quluubta way dilaan ilaahay hanaga badbaadiya fidnooyinka nabigeenu wuxuu xadiid oo saxiixa ayaa maalmaha ka mida wuxuu leeyahy asxaabigii la dhihi jiray xudayfa fitnooyinka axaadiidta ku saabsan wari jiray wuxuu leeyahay nabiga cumar bin khataab annagoo la fadhina maalmaha ka mida markuu amiirulmuuminiinka ahaa ayuu wuxuu yihi ayukum samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yadkuru lfitan yaa nabiga maqla calayhi salaatu wasalaam asagoo fitnooyinka ka hadlaya markaas ayaa dad waxay yidhaahdeen annaga ayaa maqalnay markaas ayaa sayid cumar wuxuu yidhi lacallakum tacnuuna fitnata arajuli fii ahlihi wa jaarih waxaan u malaynayaa waxaad u jeedaan fitnooyinka ninka uu ku fitnoobo ahalkiisa iyo dariskiisa oo macnaha dunuubta ay geliyaan markaasuu yidhahdeen asxaabtii ajal haa markaasuu sayid cumar wuxuu yidhi tilka tukafiruha asalaatu waasiyaamu waasadaqa dunuubtaas soonka yacni salaada iyo soonka iyo sadaqada ayaa lagu dhaafaa taas ma ahan waxaan doonayo walaakin ayukum samica annabiya sala allahu calayhi wasalam yadkuru alatii tamuuju mawja albaxr yaa rasuulka maqlay asagoo ka sheekaynaya fidnooyinka kacaya sida badaha fidnooyinka sida badaha u kacaya nebi maxamed oo ka sheekaynaya calayhi salaatu wasalaam yaa maqlay
sida hirka dheh, sida hirka badda fitnada u kici doonta oo weyn asagoo ka sheekeynaya ayaa maqlay. xudayfe ayaa marka ka yiri aniga dadkii xudayfe wuxuu yidhi dadkii waa aamuseen aniga ayaa yidhi anigaa maqlay. markaasuu sayd cumar ammaanoo yidhi aabbaha ilaaha iska leh. kabacdina wuxuu yidhi xudayfe wuu ka sheekeeyo wuxuu yidhi nabiga ayaan maqlay calayhi salaatu wasalaam asagoo leh tucradu lfitanu cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuuda fa ayu qalbin ushribahaa nukitat fiihi nuktatun sawda wa ayu qalbin ankarahaa nukita fiihi nuktatun baydaa. wuxuu yidhi xudayfa nabigan maqla calayhi salaatu wasalaam asagoo leh fitnooyinka ayaa qulubta loo soo bandhigi doonaa sida darintii ama gogoshii cawda aheed oo kale, laanlaan sida oo gogoshaas cawda ahi markii qofku isagoo feera bannaan uu ku seexdo ay feerihiisa xabad xabad uga muuqato, sidaasoo kale qulubta fitnooyinka loogu soo sii day doonaa. qalbigii haddaba la cabsiyo qulubtii ku dhacdo barmadow ayaa qabsataa, way saamaysaa. qalbigii inkiro oo diidana waxa weeye waa uu barcad waa lasii nadiifiyaa xataa tasiira calaa qalbayn, ilaa ummaddu laba qalbi ay yeelato, laba qalbi ay dadkii yeeshaan. muxuu yihi labadaas qalbi? dadki qayb qalbigoodu waa noocan soo socda oo hore, qalbina waa kan ka dambeeya. calaa abyada mithla safha falaa taduruhu fitnatun maa daamat asamaawaatu waalard. qalbi waa qalbi cad oo nadiif ah oo mithli safa dhagaxii weynaa ee adkaa ayuu la mid yahay. waxa weeye fitno waxba kama dhibayso, macnaha caddaanka ayuu kala mid yahay ama adayga ayuu kala mid yahay, xajarka amlaska ah waxba fitnooyinku kama dhibi doonaan. fitna o dhan waxba uma dhibi doonto inta samada iyo dhulku daa'imayaan. qalbina walaakharu aswadu murbaadan kalkuusi mujakhiya laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkara ilaa maa ushriba min hawaah. qalbina waxa weeye waa qalbi madow oo baro leh oo la mid ah weelkii ama koob la foorariyey oo la gembiyey. horta waa madoobaada qalbigaas, haddana waa la gembiye, weel la gembiyo la mid yahi. haddii la gembiyo weelka wax miyaa ku jiraya? wax khayraba kuma jirayaan. hadda qalbigaasi wanaag ma garanayo, wax macnaha macruufana dadka uma sheegayo wanaaga, wax munkarana ma diidayo ilaa maa ushriba min hawaah. waxa uu u arkaahi inay wanaag yihiin oo macruuf yihiin ama uu u arkaa inay munkar yihiin waa waxa qalbigaas ka buuxa. asaga hawadiisuu ka socdaa, hawadiisuu ka socdaahoo waa aragna maantay dadkii inta badan ama social mediaha dacayba ma qarsanee wixii la rabaa la diidayaa, wixii la rabaa la ogolaanayaa, wixii la rabaa diin laga dhiganayaa, ciddii la rabaa lala dagaalayaa, ciddii la rabaa la ammaanayaa, cidda dadka kuwa ugu sharta badana la hormarinayaa, kuwa ugu khayrka badana la fogeynayaa. yacni quluubtiiya hawadeedii diin ka dhigatay dadka inta badan. taas waxa weye fitnadiiyo qofkaasi aqbale. fitnada mar hadduu aqbalayna macruuf iyo munkar midna ma yaqaano o aan ahayn waxa naftiisu rabto. 100 daliil haddaad u sheegtid wuu kaa kor baxayaa waxaas isaga uu rabo. 100 daliil haddaad u sheegtid u fiirso, waxaas isaga uu rabo waxa ahayn ma aqbalayo. xudayfa markii uu sidaas yiri oo xadiidkaas sheegay ayuu sayd cumar wuxuu ku yidhi ina baynaka wa baynahaa baaban muqlaqa yuushiku an yugsar. adiga iyo fitnadaas waxaa idiin dhexeeya albaab xiran oo ay dhowdahay in la jebiyo. markaasuu sayd cumar wuxuu yidhi akasra laa aba lak,
war aabaha allaha gubee yacni waa kelimada dadku iska isticmaali jireen habaar ogma jeedee awowga alla gubtii iyo meeshii ay ka isticmaali jireen yacni ma la jabinaya albaabkaasuu yiri falow annahu futixa lacalahu yakaadu yucaad haddii la furi lahaa albaabkaas aad tirise macnaha waxaan ku yidhi albaabkaas adiga asaga albaab xirana idiin dhexeeya adiga fidnadaas sayid cumarow xudayfa wuxuu leeyay cumarow adiga iyo fidnadaas albaab xirana idiin dhexeeya is arki maysaan waana la jabin doonaa sayid cumar wuxuu yidhi mar haddii la jabiyo lamaba xiri doono laakiin haddii la furi lahaa inay xirmi laheedaa dhici karto macnaha waxa weeye fidnadaasi say u bilaabato maadaama albaab xiran ku aadana albaabkiina la jebiyey ilaa qiyaami saaca waa soconaysaa waana siday dhacday markaasaan waxaan iru yidhi bal yugsar maya waa la jebinayaa haan iru yidhi sayid cumar marka asxaabtii la joogto waxay yidhaahdeen ma og yahay cumar munkarkaas ma og yahay yacni ma og yahay fitnantaas albaabkaas ma og yahay albaabkaas ma og yahay yidhahdeen markaasuu yiri waa og yahay ay waana cumar waa og yaho sida maantay ay berri oga inay kasoo horeyso uu og yahay oo kale uu og yahay marka hadda xadiidka wax axaadiisulfitan uu ka mid yahay kuma dheeraanaynaa maxaan ka daliishanaynaa quluubta fitantu siday u dilayso fidnooyinku sida ay quluubta u dilayaan ayaan ka daliishanaynaa fidnooyinku siday quluubta u baabi'inayaan waxaa ka mid ah waxyaalaha quluubta dila oo baabi'iya ilaahay naga badbaadiyee alxasadu walbaqdaa xasadka iyo isu carooshada nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dabba ilaykum daa'u lumami qablakum waxaa idinsoo gargaaro idinsoo gaaro idinsoo gurgurtay ummadii inka horeeya cudurkooda alxasadu walbaqdaa waa xaasidnimadka iyo isu carooshada hiyal xaaliqa uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waa mid xiiraysa maxay xiiraysaa isu carooshada la isquluubta xumida la iskaga buuxiyaa laa aqulu taxliqu shacr walaakin taxliqu diin diintay xiiraysaa huu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ee tintay xiiraysaa ma lihi u fiirsa marka cuqdada iyo waxyaalaha maanta aan ku dhaqanaahi diinteennii ayay dabar jarayaan oo baabi'inayaan allahu akbar annaguna maba kala jeclinba waxaa ka mid ah waa soo kookoobaynaahe waxa oo quluubta dila waxaa ka mid ah kathratu lkalaam bigayri dikri illaahi tacaala hadalka oo la badiyo ilaahay dikrigiisa waxaa ahayna lagu badiyo wuxuuna arrinkaasi dhaxal siiyaa qaswatulqalbi qalbigoo angega qalbigoo qalala xadiidkii nabigu waatuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tukthiru alkalaama bigayri dikri illah fa ina kathrata alkalaami bigayri dikri illaahi qaswatun lilqalbi hadalka ha badinina ilaahay xuskiisa waxaa ahayn ha ku badinina maxaa yeele hadalkaoo ilaahay dikrigiisa waxaa ahayn lagu badiyaahe qalbigu qallajiya wa ina abcada annaasi min allahi alqalbu lqaasi dadkana ilaahay waxaa aada uga fog qalbiga qallalan khatar wey qofka haddii qalbigiisu qallalo ilaahay wuu ka fogyi fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ulaa-ika fii dalaalin mubiin uu ilaahay leeyahay waxaa hoogay oo cadaab leh kuwa quluubtoodu ay qallasho ilaahay dikrigiisa ay ka qallashay baadi cad ayayna ku sugan yihiin haddaba waxaan si kooban u dul maraynaa waxyaalaha quluubta lagu toosiyo oo lagu daaweeyo qalbiga kow waxa lagu daaweeyo waxaa ugu muhiimsan qur-aanka ilaahay oo la aqriyo oo marka la aqrinayo lagu tadabburo oo lagu fakaro macnihiisa lagu fakaro qur-aanku daawo weeye yaa ayuha annaasu qad jaa-atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wa hudan waraxmatun lilmu'miniin ilaahay wuxuu leey dadkaana waxaa idiin yimid wacdi oo rabbigiin ka yimid iyo caafimaad quluubtiina u daawo ah hanuun ah raxmad ah mu'miniinta oo ah marka qur-aanku wax qalbiga lagu daaweeyo waxa ugu weyn weeye oo lagu fakarana waa in lagu tadabbura macnihiisa la dhadhamiyaa ciddii qalbigeedu uu joogo
oo xaadir yaha qur-aanku aqbalaya liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid. waa daawo la isku daaweeyo oo shubahaadka la iskaa daaweeyo waxa ugu weyn. waxaa ka mid ahaa salafkii hadalkooda qalbiga 5 shay ayaa lagu daaweeyaa: qiraa'atu lqur'aani bitadabbur, qur-aankoo la akriyo iyadoo lagu fakarayo xataa macnihiis haddaad aqoon ku fakar. wa khalaa'u lbatni, calooshii oo la mariyo, macnaha gaajadii waa ay daaweysaa qalbiga. haddii 24 saac dharagba dharag aa u dhiibtid khatarteeda ay leedahay. wa qiyaamu lleyl, salaatuleylkuna qalbigu daaweeya. watadarucu cinda asaxar, habeenkii waqtiga dambe ee dadku hurdaan inaa ilaahay isu beenbisid, ilaahay barisid, ilaahay tuugtid, aad toobad keentidna qalbigu daaweeyaho. wabilasxaari hum yastakfiruun, iyo walmustakfiriina bilasxaar saa u geshid. waxaa kaloo qalbiga daaweeya mujaalasatu saalixiin, dadka wan wanaagsan oo aada la saaxiibtid oo la fariisatid. waxaa ka mid a waxyaalaha qalbiga lagu daaweeyo qalbigii oo ilaahay jacaylkiisa aad ka buuxisid, rasuulka jacaylkiisa aad ka buuxisid. 3 man kuna fiihi wajada xalaawata aliimaan an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma. 3 shay qofkii hela iimaanka macaankiisu dareema, inuu ilaahay iyo rasuulkiisa ka jecel yahay wixii ayaa ka soo hara. sidoo kale qalbiga waxaa lagu daaweeya waxaa ka mid ah ilaahay dartiisood wax u jeclaatid, inaad aada uga baqdid gaalnimadkii iyo kufrigii, sida isla xadiidkaas uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. waxa qalbiga lagu daaweeya waxaa ka mid a in ilaahay dikrigiisa aa badisid. alaa bidikri illaahi tatma-inu lquluub, ilaahay uu leeyahay dikriga ilaahay ayaa qalbigu ku dagaa, qalbigu ku xasila. mathalu ladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru rabbah ka mathali lxayi walmayit, xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. kan ilaahay xusaya iyo kan aan xusayn, qof nool iyo qof dhintay iskula mid yihiin. tusaale ahaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee qalbiga lagu daaweeya waxaa ka mid ah ducadii ilaahay la baryo, oo qalbiga hagaajintiisa inaad ilaahay weydiisatid oo aada ducada badisid oo aada ku ducaysatid. mathalan ba ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam: allahuma naqi qalbii min alkhataaya kamaa naqayta athawba alabyada min addanas, oo kale xadiidkii ahaa. ilaahu qalbigeyga gafafka iyo dunuubta ka tirtir oo ka dahiri sida aada marada cad wasaqda uga tirtirtid oo kale. ama kamaa yunaqa thawbu labyadu min addanas, sida marada cad wasaqda looga dahiro oo kale. ilaahu qalbigeyga dunuubta uga dahir. iyo ducadii ahayd: allahuma aati nafsii taqwaaha wazakihaa anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha. ilaahu naftayda sii taqwadeedii iyo cabsideedii. naftayda ilaahu dahir, cid wax dahirta adaa ugu khayr badane, adigu weligeedaa tahay iyo mawlaheeda. ducadaas inaa ku ducaysatay. iyo ducadii kale nabigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiray: yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik, quluubta allaha gegediyow qalbigayga diintaada ku sug. sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka magan geli jiray in qalbigiisu uu noqdo midaan khushuucayn. allahuma inii acuudu bika min qalbin laa yakhshac, ilaah waxaan kaa magan gelayaa qalbi aan khushuucayn. wa min ducaa'in laa yusmac, duca aan la aqbalayn. wa min nafsin laa tashbac, iyo naf aan dhargayn. wa min cilmin laa yanfac, iyo cilmi aan waxba tarayn oo lagu dhaqmayn. acuudu bika min haaulaai alarbac, nabigu calayhi salaatu wasalaam u dhihi jiray ilaahu 4taasaan kaa magan gelayaa. marka ducooyinkaas inaan badino wey. sidoo kale aayaddii qur-aanka aheedoo ducadana ahayd: rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab. ilaahu quluubteenna ha leexin oo ha baadiyeen markaadna hanuunisay ka bacdi. ilaahu agtaada raxmad nooga hibee, adigaa wax hibeeye. inaan ducadaas badino ayaa nala haboon. qalbiga waxyaalaha lagu daaweeya waxaa ka mid a shacaa'irta iyo waxyaalaha calaamaadka diinka ilaahay hon weyneyno. waman yucadim shacaa'ir allah fa inahaa min taqwa alquluub. maaragtay qofkii shacaa'irta ilaahay weyneeya quluubta cabsideeda ayay ka mid tahay. cabsida hadda qalbigana waxa weeye waa daawo.
qulubta waxyaalaha lagu daaweeyo waxaa ka mid a wixii dembigii iyo macaasidii oo dhan inuu qofku ka fogaado. ilaahay wuxuu leeyahay markuu la hadlayo waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab. gabdhihii markaa wax weydiisanaysaan waxaad alaab markaa weydiinaysaan xijaabka gadaashiisa ka weydiiya. dhalikum adharu liquluubikum wa quluubihina, kaas ayaa quluubtiina u dahiran iyo quluubtoodaba. oo macnaha dunuubtii iyo is araggii iyo nadradii ajnabiga ayaa maaragtay meesha ka baxaysa. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa hagaagsan allah naga dhigo. acmaasha saalixadaha ka mida qulubta waxa lagu daaweeyo man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa muumin falanuxyiyannahu xayaatan dayiba. qofkii camal wanaagsan sameeya nin iyo naagba isagoo muumina nolol wanaagsan aan ku noolaynaynaa. walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun, waxaana ku abaalmarinaynaa ujurada ay shaqaysteen, waxay shaqaysteen waxa ugu wanaagsan thawaabkooda. waxaa ka mid a waxyaalaha qalbiga lagu daaweeyo qubuurtii oo lasoo ziyaarto. zuuru lqubuura fa inaha tudakirukum alaakhira. qubuurta ziyaarta aakhirada idin xusiisanaysaa nabigu leh calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele qofka dhimashadii iyo wixii oo dhan ayaa kusoo dhacaya, wuu soo waansamayaa. macnaha dadkii jiranayo la booqda qulubta lagu daaweeyaa. meydkii oo wax laga qaadaa qulubta lagu daaweeyaa. dhimashadii xuskeedii oo la badiyaa qulubta lagu daaweeyaa. inuu qofku dhimanayo inuu ku talagala qulubta lagu daaweeyaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigeena daaweeyo, qaalabkeena daaweeyo, annagoo dhan uu naga dhigo muuminiin daaco badan. insha allahu tacaala kuwii waxa aan sheegayna ku dhaqmo allah naga dhigo iyo waxa aan maqlayna intaba. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.